gudoomiyaha ururka Iidaan ee suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa mudane Fataax Axmed Maxamed iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay booqasho ku tageen deegaanka Abaarso halkaas oo ku taalo beer aad u ballaaran oo uu leeyahay mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland beertaasi oo ka kooban noocyada kala duwan ee khudaarta isla markaasna soo saarta qaybaha kala duwan ee adeegga badeecadaha khudaarta waqtigaanu booqanay beertaasi waxa ka socotay wax soo saarka kala duwan ee beertaasi Masno waxaana halkaasi warbixin ka siiyay wakiilka guud ee beertani Masno mudane Cabdilaahi Maxamuud Cumar oo ah wakiilka beertani ayaa sheegay soo bandhigay khudaarta kala duwan ee soo saarto beertani waxaan idin sheegi karaa xabuub basal baradho sinsin qaji baamiye nooc walba soo baxaya wixii la beeraayba dhulkeena wax uu soo saareen majil xataa lowskii baan ku beeray digirtii baan ku beeray wax qaas weyn noo soo baxay dhulkeenu wax weey wax uu soo saareen ma balahan waxa si loo baahan yahay inta bacal galiyo gudoomiyaha ururka Iidaan ee suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa iyo mid ka mid ah guddigaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen beertani waxay ka kooban tahay guud ahaan intii qudaar wax kasta oo way ka baxeen tacab bilow iyo tacab dhammaystiran inta way ku jiraan dhulkani waxa weeye dhul aan muxuu ahaay biyo lahayn haddana wuxuu isku dayay inuu muxuu ahaay wax ka soo saaro waxa ku taala basashii tamaandhadii walow xataa baradhadii ayuu beeray wax runaantii ay ku daydaan muwaadiniinta reer Soomaaliland in meel walba ay wax ka baxayaan horta ninkani macallin u noqdo ayaa wanaagsan waayo tacab meel kastoo tacab la geliyaa buurdusheedna ha ahaatee waxa weeye in ay wax ka baxayaan waad arkaysaan beertan ma laha riig ma laha ceelbiyood ma laha haddana waxa suurto gashay inuu tacab geliyo oo ay ka bilic iyo barwaaqo badnaato beeraha ay ceelashii ku dul yaalaan ee aan cidi ka faa'iideysanayn waxaan daba ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto aan leeyahay waarinama anfacayso inaynu wax walba dibadda aynu ka sugno inama anfacayso walow findhicil yar inuu dibadda inooga yimaado inagoo dhulka sidaan quruxda badan haysana barwaaqadan haysana dhulkan muxuu ahaayay nimcadu ay hadii la galiyo laga soo saarayo aynu haysano haddana inaynu meel fog wax ka doonano ceeb ayay nagu tahay waxay muujinaysaa fikirka waxa la qaatay ee uu ka qaatay waliba barbanaande waxay muujinaysaa arrin aad iyo aad u adag halka laga dooni jiray inta waa basasha wax laga keenaa China waa loo geeyay inta jiro marka cali fikirku qaatay waxa weeye inuu ka soo saaro kiiloomitir meel u jira faa'iido la garanaya si kastaba haatee beertani oo ka kooban qaybo kala duwan isla markaasna raxmaadkii ee bimaasheeyay ayaa waxa ay indhahagu qabanayaan badeecadaha kala duwan ee khudradda iyo noocyada kala duwan ee adeegyadaasi ee beertaasi lagu beeray isla markaasna kaalin weyn ka qayb qaadan doona wax soo saarka kala duwan ee dalka tanina waxa ay muujinaysaa sida muwaadiniinta Soomaaliland tacabka beeraha ay qayb weyn uga qayb qaadan lahaayeen isla markaasna wax soo saar ballaaran loo sameyn lahaa beertaasi oo shaqada ka socotay ahayd mid aad u ballaaran isla markaasna ka kooban noocyo kala duwan beertani oo kaalin weyn ka qayb qaadan doonta wax soo saarka kala duwan ee dalka Soomaaliland ayaa waxay noqon doontaa mid iyadu inta badan soo saarta badeecado iyo adeegyo kala duwan oo bulshadu u baahan tahay waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo sawirqaade Cabdi Cumar Jibriil warbaahinta dawladda deegaanka Abaarso